الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ولا ليال وحين سودني دروستي كصعب صنايد سلسلة دي وحويان كشف أسرار السحرة الأشرار. تهفيتك إن شاء الله إنه سميني أين قلت لك الله إن شاء الله إن كشفناه أما أن ما ركتي وحيابها أي قرينا يعني أن بنانك وصو صاره nimanka waxa weeyaan saaxiriinta loo yaqaano ee umada waxa weeyaan dibka aadka u fara badan leh waxa weeyaan ku haya insha Allah walaalayaal waxaan hore u qaadanay laba darsiyo hore oo aynu kaga waranay sixirka iyo waxyaabihiisa maanta walaalayaal insha Allah waxaan ka hadlaynaa oo xalqadeena saddexaad aan kaga hadlaynaa insha Allah adillatu thubut as-sihr adillada waxa weeyaan muujinaysa ee tusinaysa sixirku inuu yahay shay sugan oo waxa weeyaan xaqiiqo ah ilaahayna subhanahu wa ta'ala uu ka waramay nabiguna kaleey salaatu wasalaam sunnadiisii waxa weeyaan uu kaga waramay qoliyo diidan baa jira oo waxa weeyaan noocyo kala duwan u kala baxaya oo inuu sixirku waxa weeyaan saameyn leeyahay oo dadka uu waxyeeli karo ama wax sugan oo jira uu yahay insha Allah markaa walaalayaal waxaynu maanta aynu insha Allah qaadanayna ilaahay idamkiisa inaynu sugno sixirka iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii uu ka yiri iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam wixii uu ka yiri iyo culimadu waxa weeyaan ahlu sunnuhu wixii ay ka tilmaameen insha Allah si kooban duruusta walaalayaal insha Allah waxa rabaa mar walba inay noqoto duruus kooban oo waxa weeyaan dadku waxna ay ka fahmi karaan faa'iidana waxa weeyaan insha Allah ay ka qaadan karaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay kalaamkiisa واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وحي راعين وحي وحويان شياطينتو اي اخرينيسي ملكي سليمان وحويان الهي وسخر اي كميد اهايان markaas ba ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu cadeynaya sixirku inuu waxa weeyaan yahay shay waxa weeyaan sugan oo waxa weeyaan jiraba Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo tilmaamaya haddaan walaalayaal nabi Muuse alayhi salaam waxa ogtihiin oo quraanku in fara badan waxa weeyaan uu ka waramay dhixdiisana waxa weeyaan caanka ah qisaskii faraha badnaa ee sagaya waxa weeyaan saxarada kala qabsaday ama soo kala maray ee waxa weeyaan dagaalkii dhex maray oo waxa weeyaan golayaal loo sameeyay oo wax qarsoon aan ahayn ilaahayna subhanahu wa ta'ala kitaabkeenan quraanka ana ilaahay subhanahu wa ta'ala qisaska uu inoogu soo guurinayo si waxa weeyaan aynu ما ركتي حقيقة ذا وحوي أنا إنه أجانو إلهي سبحانه وتعالى وحوليه قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون نبي موسى عليه الصلاة والسلام مركي إلهي وصدري اتهموا بالسحر وحويا وحي كتهمين سحر إنه سحر لو يهي أو سحر لو يهي أو حجوين كان قوته وحويان خوارق العادات كأه إلهي سبحانه وتعالى وسو ديبي إني وحويان يهين بي موديين سحر ما دام يجا أكتود السحر كوكو بدنا قيمنا مركا أكتود يجا وكلها وحنا وجنشري سيدنا سليمان با عليه السلام يقول ما ركت التهمين إلهي سبحانه وتعالى ملكي جا وسخري إني وحويان والسحر كل قيسنا يو أي وحويان أقبين لكن وحويان حقيقة انت ويقرب مرسنت إلهي سبحانه وتعالى باينوت المامية قال موسى نبي موسى وحاويري سوى قوم كيسيو يريا أتقولون للحق ورمحقة يدينته يكتابك الله سبحانه وتعالى يسور دي بيبا وحاليدهين مركيو يديمي السحر هذا كان ما سحر بابي ليهين ما كون آن دين لا إمي با سحر كنت الماميسان ولا يفلح الساحرون وحقوت المامي سحرولو إن أنو قول قادين وحويان آنو الليبانين ميلا وحويان آنو قادين حقيقة وحويان قول كالله سبحانه وتعالى ونوت المامي النبي موسى إلهي سبحانه وتعالى وكسو نقلين أيو
waxa weeyaan waa qowlka xaqiiqada ah ee mar walba sixrooluhu inaanu waxa weeyaan adduuniya aakhiratoona aanu ku liibaanaynin taas waxay noo cadeynaysaa aayadaas aynu ka dheeganaynaa sixirku inuu yahay shay waxa weeyaan jira ummado hore badanna waxa weeyaan maaragtay de taariikhda dheer ee ka dambeysana waa garan kartaan waqtiga waxa weeyaan nabi muuse ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay qisaskii nabi muuse isagoo sii wada فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله نبي موسى عليه السلام markii waxa weeyaan ay dalbadeen fircoon iyo saxaradii la socotay inay waxa weeyaan madal weyn la sugu yimaado ummadoo dhan loo yeero si ay goob joog u noqdaan xaqiiqada waxa weeyaan ay u ogaadaan in waxa weeyaan la sugu yeeray wax allaale wixii saxara aha nabi muuse alayhi salaam liiri soo xaadir adiguna waxa weeyaan mawcidna inoo samee si waxa weeyaan loo kala baxo oo ay u cadaato waxa weeyaan qolada xaq wada ee sixirkaagan anagu sixroolayaal ka waaweyn baan haysanaa bay leeyihiin iyagu markaa sidan bay ka aaminsan yihiin laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyaga ayaa lunsan ee nabi muuse ilaahay subxaanahu wa ta'ala mucjisooyin waaweyn iyo kitaab xaqa ayaa alle subxaanahu wa ta'ala uu la soo diray markaas waxa weeyaan markii ay waxyaabahoodii ay tuureen qaala muusa nabi muuse alayhi salaam waxa uu yiri ma ji'tum bihi as-sihr waxa alla timaadeen oo sixira inna allaha sayubdilu ilaahay ba burinaya awoodiisu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku burinaya maantana ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxyaabaha ay sameeyaan isaga awoodiisa ku burinaya maalinkaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga ayaa buriyay inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin qofka amalka xun wada ee amalada waxa weeyaan dhibaatada ah wada ilaahay subxaanahu wa ta'ala marnaba waxa weeyaan amalkiisa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu hagaajin maayo uu suura gelin maayo goobtaana waxa weeyaan saxaradii inay ku fashilmeen waxa weeyaan waynu ognahay nabi muuse alayhi salaam waxa uu leeyahay yuhiqqu allahu alhaq ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu cadeyn doonaa xaqa bikalimaatihi kalimaadkiisa quraanka oo ila soo diray ba alla subhanahu wa ta'ala uu cadeyn doonaa maanta walaw kariha almujrimuun haba dhibsadaan kuwa mujrimiinta ee saxarada ah ee waxa weeyaan maanta wadataan iyo fircoon iyo inta la socota ee u sacabtumaysa saxarada ah waxa weeyaan dhamaantood haba dhibsadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu cadeynaya xaqa فأوجس في نفسه خيفة موسى markii ay tuureen ee ulahoodii iyo waxa weeyaan ay tuureen ee ay abeesooyin noqdeen ee bahalo dhaqdhaqaaqayo soconayo afka soo kala hayo nabi muuse ku soo aadanay noqdeen فأوجس في نفسه خيفة موسى nabi muuse alayhi salaam wuxoogay cabsidii insaaniga ahayd qofka insaanka ah cabsi dabiiciya baa waxa weeyaan ku abuuran dabeetana wuu yar baqay oo wuxoogay baa yar galay markii wixii day bahalay isu bedeleen قلنا لا تخف انك انت الاعلى الهي سبحانه وتعالى waxa uu ku yiri Muuse habiqin adiga ayaa waxa weeyaan sareyn doona والق ما في يمينك وشان yaraad gacanta ku hayso waxa weeyaan tuur baan ku yiri ba Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay shan yar tuur oo xarkahan iyo bahalahan ay soo daayeen adigu ku sii daayo ficilkaas sameeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nabi Muuse ku yiri talqafu ma sanaacu waxay urursan doontaa ay afka u ridan doontaa oo shaayari wax allaale wixii waxa weeyaan ay soo sameeyeen oo sixira inma sanaacu kaydu saaxir wax kale ma aha waxana isu soo ururiyeen ee ay isu unkeen ay isu keeneen waa dhagar sixiroole weey iyo bahalahan dhaqdhaqaaqaya darkii nabi maxamed nabi Muuse alayhi salaam waxa weeyaan hawbiqin ba ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku yiri ilaahay ba hagaya iyagana sheedaan ba hagaya oo la socda ولا يفلح الساحر حيث أتى إلهينا وحو تلمامي نبي موسى سحروله ميل كستو او تغو inaanu waxa weeyaan guul iyo liibaan inay ka dheerto marnaba aanu helin ilaahay subhanahu wa ta'ala goobta waxaan ognahay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi Muuse uu guuleeyay oo waxa weeyaan sixrolayaalkii sida waxa weeyaan looga adkaaday walaalayaal insha Allah inta haddaan kaga soo gudubno qisadii ama qisaskii nabi Muuse alayhi salaam oo quraanka in badan ku soo arooray sugayana waxa weeyaan sixirku inuu yahay shay waxa weeyaan jira markaynu inta ka gudubno ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ku leeyahay suuratu qul a'udhu bi rabbil falaq wa min sharri an-naffathati fil 'uqad ba Allah subhanahu wa ta'ala ulay nabi maxamed waxa tiraahdaa ilaahay waxaan ka gelayaa wa min sharri an-naffathati fil 'uqad kuwa waxa weeyaan
وحتفيا قنتمها وحكتفا سحروليالك أبان إلهي سبحانه وتعالى كم من قل يا دبا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقول قرطبي رحمه الله تعالى قال القرطبي مركي آيادا وتفسيره ومن شر النفاثات في العقد وحير يعني الساحرات اللائي ينفثن اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين بها إمام القرطبي رحمه الله تعالى مركو آيادا ودول اشتاقي تفسير كذا وحا ويري معناها لولا جيدا آيادا waxa weeye nabiga عليه الصلاة والسلام laleeyahay ka magan gal ilaahay waxa weeyaan waan saaxiraadka naagaha saaxiraadka ah alla yanfuthna fil uqadi kuwaas oo guntimaha waxa weeyaan wax ku tufa xiina yarqiina biha marka ay ku tufayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka magan gal حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وحويا سجنا وحولي مركو آيات كورستاجي ومن شر النفاثات في العقد قال مجاهد وعكرمة وحسن وقتادة والضحاك يعني السواحر وحلولة كذا ساحرات كالولة كذا هو وحسحرة وحويا وحد حرة أي لولة كذا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى سجنا مركو آيات كورستاجي وحولي أي ومن شر السواحر وحن إلهي كم ينقل يا دين النبي محمد ساحراتك اللائي ينفثنا كواسو طفيا في عقد الخيط قنتيمو وحويا لحد حري وحكو طفيا أيان إلهي سبحانه وتعالى كم ينقل حين يرقين عليها مركا وحكو طفيا من إلهي سبحانه وتعالى أن كم ينقل قال القاسمي سيداس با waxa weeyaan qaasimina uu tafsiirkiisa uu ku soo guurinaya wabihi qala ahlu ta'wil waxa weeyaan ahlu ta'wil kuna iyagu sidaas ayay waxa weeyaan ku tafsiireen oo waxa weeyaan aayada ay u mareen inuu marka waxa laga qaadanaya inuu waxa weeyaan markan aayada soo ururino macaanideeda iyo tafsiirada waxa weeyaan ay saareen waxa weeyaan culimadii mufassiriinta ahaa inuu sixirku yahay shay waxa weeyaan sugan shay waxa weeyaan aan sugnayn oo aan awood lahayn oo aan waxba tarin waxa weeyaan nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ilaahay kalama dardaarmeen oo kuma yiraahdeen ilaahay ka magan gal marka waxa weeyaan ay xarkaha iyo guntimaha ay xidhxidheen marka ay wax ku tufayaan ilaahay ka magan gal lama yiraahdeen marka waxayna tusaysaa aayadaas oo si cad ay u bayaaminaysaa sixirku inuu yahay shay waxa weeyaan sugan oo waxa weeyaan xaqiiqa oo qofka waxa weeyaan wax yeeli kara naftiisa qofka waxa looga digaa oo loo sheega waxa weeyaan wax yeelala leh ee naftiisa wax yeeli kara aayad aad u fara badan waxa weeyaan way ku soo arooreen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan buu kaga warramay inta hadaan quraanka kaga soo gudubno sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وحا إلهي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحا سحر رجل من بني الزريق نين رير بن الزريقة ونمك يهود هاي رير بن الزريق لأنشري كتر سن أيا وحوي النبي عليه الصلاة والسلام سحري يقال له لبيد بن الأعصم ولو يقال لبيد بن الأعصم نين اللي هذا أيا النبي عليه الصلاة والسلام سحري أيا عائشة إلهي حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك إلهي نقضي يخيل إليه إن وحويان شيء لموتسيو أنه كان يفعل الشيء إنه شيء قاسمي وما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة هان شيء قان وحوي أسمينين حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وشكره ويان مال المها كمدا أبي هبين نذا كمدا يا واحد عضي وهو عندي نبي عليه السلام سوانك إلى تشيفة لكنه دعا ودعا إلهي ببري مركز بالدعاء كل العلي إلهي سبحانه وتعالى إن بدن ببري إنه حنون كان وحويا إلهي وككر قاضو وتصح حقيقة ثم قال دبت النبي عليه السلام وحويري يا عائشة أشعرت مدرنتي أن الله أفتاني فيما استفتيته
wixii ilaahay aan weydiistay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ii muujiyey oo xaqiiqadoodii u tusiyey caaisha ma dareentay baa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi su-aashaasuu weydiiyey dabeetana nabigu arrintiiba caaisha uga warramo wuxuu hi aataanii waxaa ii yimi rajulaani laba nin faqacada axaduhumaa cinda ra'si mid baa madaxayga fadhiistay walaakharu cinda rijlii buu fadhiistay lugtaydu midna fadhiistay xagga lugaha midna iga soo fadhiistay midna madaxa faqaala axaduhumaa mid baa waxa uu ku yidhi lisaaxibihi kii kale la socday maa wajcu rajul ninkan xanuunka hayaa muxuu yahay faqaala madbuubun waxa uu yidhi ninkani waa sixran yahay waa nin sixran qaala man dabbahu oo yaa sixray sixirkan yaa u sameeyey qaala waxa uu lubayd ibnu lacsam qaala waxa uu ku yidhi fii ayi shayin muxuu ka sameeyey sixirkan qaala waxa uu yidhi fii mushdin wa mushaadatin wuxuu ka sameeyey timo wa jufi dalci nakhlatin dakarin iyo ubax timireed ama xoob timireed ayuu waxa weeyaan ka sameeyey sixirkan iyo timaha nebiga oo isku daray ayuu ka sameeyey buu yidhi kii kale qaala wa aynahu oo xaguu sixirkii yaalla xaguu geeyey buu weydiiyey su-aashaasu ku celiyey qaala wuxuu yidhi fii biiri darwaan ceelkaa darwaan loo yaqaano ayaa waxa weeyaan sixirkaa uu geeyey فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس بانبغ وودري من أصحابه فجاءوا دبتنوي كان سحرك وحاويري عائشة كأن ماؤها نخاعة الحناء وحد مودا مدبك بيه عيلك سيدا يسب الدلان سحرك القردي سيدا حنها مركا لقوشو ويسوشي تاو فريستو أيا بيه عيلك وفريستان بوريو سنتها سحرك أيو فريسيسا وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين تمرتي عيلك كل احتالينا أما آجيس كبحيسي مدحيدي وحو أقاضي مدحيدا أبي صدى أكل الحية يقال لها الشيطان أبي صدى وحوين اللغة العربية لفتيدا وحلوها ديك سنشري الشيطان مركا علماء بدن وأهل الحديثة وحوين سيداس بي كنت المامان وحوين يكون فسران قالت يا رسول الله أفلا استخرجته ونبي قال يوم سوس أرتدبان كوري قال دبتني وحد قد عافاني الله إلهي بأيق الشافيي فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا إن أنتك كل حفافية شركي سؤال وضنا وأنسك الديدي فأمر بها فدفنت دبتنا قد كيوال أو دواب الله عسعيل كده ما حديث كاولا الليال معناه هو تلمام أيوه سجود هدين سجود تاجنا صوروا إنه حديث كوحة أو تلمام يا اليهود لعنهم الله اتفقوا مع لبيد بن الأعصم وحويان لبيد بن الأعصم يهود أنت صور سنين يوتجان وهو من أسحر اليهود وحانوها سحر الله حق يهود وسحر كبدن بوها لبيد بن الأعصم عليه من الله ما يستحق إنه أسمى النبي قبل يكوك وحويان يسكوا وافقين سحر وحانيسيان ويعطوه 3 دنانير 6 دينار نويسيان وفعلا قام ذلك الشقي بذلك العمل عمل كافوشح أيو نكاس وحويان وكل غاقي وحونا كسمي تمها أين صوت شاقني النبي عليه السلام googo-ooda iyo waxa weeyaan laftimireed uu isu keenay waxay بعض العلماء إليهن قيل إنه حصل عليها من جارية صغيرة كانت تذهب إلى بيوت النبي قبر ير waxa weeyaan guriyaha nabiga عليه السلام aadi jirtay ayaa waxa weeyaan soo qaaday timahan oo u keentay ninkan yahuudiga markaas waxa weeyaan sixirkan oo waxa weeyaan uu ku sameeyay حديث كولا ليال ظاهر كيس مركان اغنو اما سحر كان نبي لو سميه نوعا او اها waxay isku waafaqsan waxa weeyaan culimadu inuu ahaa sixirka loo yaqaano min nawci aqd ar-rajul an zawjatihi qofka ninka in xaaskiisa laga xiro inuu u galmoodo inuu nooca ahaa sixirka nabiga kaleey salaam
loo sameeyey iyaguna markii hore ay ugu talagaleen sixirkan inay ku dilaan oo sixir dila inay ku sameeyaan ba nabiga kaleey salaam ay ugu talagaleen markii hore laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu nabiga uga yeelay sixirada ay sameeyaan kii ugu khafiifsanaa ugu sahlanaaba ilaahay uga dhigay oo ah ninka in xaaskiisa inuu u galmoodo laga xidho dabeetana nabiga kaleey salaam aqligiisi marnaba waxa weeyaan wax saameeyna iyo risaaladii uu waday kuma yeelanan sixirkaas laakiin nabiga kaleey salaam wuxuu ismoodsiin jiray xaaskiisa inuu u galmooday isagoo waxa weeyaan xaasaskiisa inuu u galmooday isagaan u galmoonin laakiin sixirkani ma saameynin aqligiisa iyo sulukiyaadkiisa iyo tasarufaadkiisa laakiin wuxuu ku urursanaa sixirka waxa weeyaan aqdiga rabdiga ah ee loo yaqaano ninka xaaska in looga xidho inuu xagga shahwada ama u galmoodo culimadana way isku khilaafeen waxa weeyaan sixirkaas muddada uu ahaa qaala bacd ulama 40 yawman biqaarkood ku tilmaamaan qaarna waqtiyo kale ayay sheegaan Allahu a'lam ilaahay ba subhanahu wa ta'ala og laakiin waxa xaqiiqada sixirkaas inuu jiray oo waxa weeyaan uu dhacay oo sixirka hadda sugan waxa weeyaan uu yahay nabiguna kaleey salaam ilaahay uu bariyay ilaahayna uu ka kaxeeyay sidaana waxa weeyaan ilaahay uu kaga caafimaadiyay بعض المعتزلة يدد كلو بدن با waxa weeyaan waxa ay tilmaamayaan sixirka nabiga loo sameeyay inuu keeni karo hoos u dhac xaqii risaaladii waxa weeyaan nabiga kaleey salaam laakiin taas marnaba xaqiiqo ahaan wax sugan oo dhacaya maaha nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay ba ilaaliyay risaaladina ilaahay ba u soo dhiibay risaaladina waxa weeyaan ilaahay ba ilaaliyay ilaa maanta waxa weeyaan baan wax laga bedeli karin kitaabka quraanka kitaabtii kale dhan waa la taxriifiyay oo waxa weeyaan waxba lagu daray oo waxba laga jaray oo waxa weeyaan deew waa ogtihiin laakiin kitaabkan quraana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun ilaahi isaga ilaashanay waxba laga bedeli karo maanta waxba laga bedeli karo nabi maxamed kaleey salaam joogana iska badda oo waxyiga soconayo soo degayo taana waxa weeyaan marnaba wax dhici kara waxa weeyaan maaha qoliyaasina waxa weeyaan wada khaldan bay mareen waxa weeyaan culimaduna aqwaal fara badan bay waxa weeyaan kaleeyihiin waxa weeyaan aqwaashan insha Allah aan iska soo ururino mid iyo laba hadii waxa weeyaan ka tilmaano ninka loo yaqaan abul jinki yusuf rahimahullah yusufi rahimahullah ta'ala waxa uu leeyahay ma wuquu'ul marad lin nabi xanuunka nabiga kaleey salaam ku dhacay بسبب السحر السحر كو سببته وها فلا يجر خللا لمنصب النبوة وحويان نبي نمدي عليه الصلاة والسلام إلهي والنبي يسو ديبي وح نسقان وحويان كوكيني ميسو لأن المرض الذي لا نقص فيه في الدنيا يقع الأنبياء وحويان حنونك أن وحويان دينته وحباو لبينين يا أنبياء وحويان وكل الدنيا انت تشوغان ويزيد في درجاتهم درجوين كودن كربو وقادا iyo aakhiradoodaba alayhi salaam marka waxa weeyaan sixirkaasi wax saameeyna waxa weeyaan marnaba dacwadii nabiga alayhi salaam waxa weeyaan ma aragtay ku keeni maayo inta hadeen waxa weeyaan ku soo ururna qaybta xadiiska nabiga alayhi salaam ee labaad ee nabiga alayhi salaam ka sugnaaday waxa weeye اجتنبوا 7 الموبقات نبي عليه السلام waxa uu leeyahay waxa ka fogaataan oo ka dheerataan todobada wax halaaga qaybta koobada shirku billah ilaahay in loo shirki sameeyo wasixru iyo sixirka wax in la sixra ama in la barta ama waxa weeyaan lagu dhaqmo ama in qof waxa weeyaan lagu la dhaqmo oo lagu la kaca nabiga alayhi salaam ka fogaada buu leeyahay waxyaabaha lagu halaagsamo ashirku billah ilaahay loo shirki sameeyo shirkiga ilaahay loo sameeyo iyo sixirkan waxa weeyaan baynahuma cilaaqatan kabiratan waxa ka dhaxeeya laba cilaaqo oo aad u waaweyn sixirku marnaba ma socon karo waxa weeyaan shirki la'aan in waxa weeyaan la sameeyo inta badan seen ku arki doono daruusteena dambe mar walba waxa weeyaan ninka saaxiroolaha ah ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u shirki sameeynaya nacuudu billah in sha Allah wala la yalqaybtaana saddexaad intaas in sha Allah ku soo gabagabeynayna ilaahay idamkiisa in sha Allah qaybta afraad ayaa in sha Allah inoo ballana wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh